guusha ama the success nolosha qofka bini aadamka goormaa la odhan karaa wuu guulaystay ama guusha dhabta ee la gaadho nolosha inta la noolya maxay tahay ereyga alfawz afka carbeed waa najaatun min marhuub wa taxsiilu marguub bay yidhahdaan waa waxaad ka cabsanaysay oo aad ka nabad gasho iyo waxaad raadcaynaysay hunguraynaysay oo aad ku guulaysato ama aada hesho qofka bini aadamka ahi sidiisaba min fitrati waa jecel yahay inuu guulaysto iyo inuu muuqdo laakiin waxaa isweydiinta leh guusha dhabta ahi waa tee maxaa lagu qiyaasaa miqyaas ma leeday wax lagu qiimeeyo ama miisaan ama miqyaas oo lagu garan karo qofku inuu guulaystay iyo inaanu guulaysanin maxay tahay alfawzu fi lxayaa baynu dhih noloshu waa intee maxaynu ka rumaysannay noloshu ma 60-70 sano ee halkan la joogaba mise waa adduuniya aakhiroo la isku daro waxyaabahaynu ku qiimeyn karno inuu qofku guulaystay iyo inaanu guulaysani maxaa ka mid ah ma maalba ma sulto iyo magac iyo maamuus iyo authority power inuu helaba maxaa u ah sal ee aynu ku qiimeynaa inaynu idhaahno qofkani wuu guulaystay ama nolosha success buu ka gaadhay liibaan buu gaadhay qiimeyntaasi sax noqon mayso ilaa aynu isla garano alxayaa lafteeda nolosha iyo hadafkeeda why we are living maxaynu u noolay what is the purpose of life nolosha tan maxay tahay danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysano fawska ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunya ilaa mataacu lguruur ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy naf waliba way geeriyoonaysaa noloshu tan la joogaa wax sii soconaya maaha mahmaa kaana ladayk min maalin wa sulطatin wa nicmatin waa tegaysaa baa la yidhi wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin waa lagu dhadhansiiyey wax weyn maaha laakiin wixii aada shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay insaanku ra'su maalihi waa sanawaadka uu nool yahay wixii aada shaqaysatay waxaa lagu oofinaya lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala yowma alqiyaama sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa kaas baa guulaystay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu lguruur nolosha adduunna ma aha mid kadsani wax uu birhbidhsado mooyaane yacni nolosha adduunyo waa mataac laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur ku la kadiyey ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda walidaalika baa aayaddaa ku xigta fii suurati ali cimraan aayadda 185 aayadda ku xigta ilaahay wuxuu leeyahy latublawunna fii amwaalikum waanfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kahiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi اlumuur yani waxaa la tilmaamayaa alxayaati اdunyaa macnaheeda rasmigi inuu yahay alibtilaa walidaalika ayuha alikhwa kow markaynu wax qiimeynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno noloshoo dhan adduunku waa qeyb yaroo ka mida noloshaada
maraaxil bay noloshaadu maraysaa. maraad caloosha hooyadaa ku jirtay, maraad yareydoo soo koraysay, maraad geeriyootay, maraad xabaal ku jirto, mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo, iyo daint halkay ku gabagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso. ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa? waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa. qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan, waa mowducu ibtilaa. wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su-aal jawaabteeda la sugaya waxaad ku qorto whatsoever. haddaad caafimaad qabto waa su-aal, haddaad xanuunsanayso waa su-aal, haddaad xoola haysato waa su-aal, haddaad faqri ku jirto waa su-aal. whatsoever, wax kasta oo nolosha kula kulma waa beyj nolosha ka mid ah, laakiin ah imtixaan xagga rabbi ka yimi oo la eegaya waxaad kaga jawaabto. mid walibana jawaab bay leedahay, mid walibana jawaab bay leedahay. saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy tabaaraka aladii biyadihi اlmulku wahuwa calى kuli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaa laynoo tilmaamay geerida iyo nolosha iyo waxaan oo dhami macnaha qurhe looga dan leeyay inuu tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala, in laydin tajribeeyo, laydin itixaamo. weliba waa tajriba experiencekeedii aadam lagu soo bilaabay. aadam cid ka horeyso bini aadama uu ku daydaa ma jirin. isaga tajribo gaaraa la siiyo, inta janno la geeyaa la yidhi geedka ha cunin. waayo isagu cid hore oo uu ka tajribo qaataa ma jirin. innagase ilaahay qur-aanka taariikhdii reer nebi aadam oo dhan buu inooga warramay. tajaarib alinsaaniya kullaha macmal waa laab. bini aadamka taariikhdiisu waa laabkii insaanka. qof walba wixii uu la kulmay ama wixii uu nolosha soo maray. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy subxaanaه wa tacaala war adduunku inaa jacalnaa maa cala aradi ziinatan laha. dhulka waxa kor saaran oo dhan waa qurxun baan dhulka uga dhigay baa ilaahay leeyahy. oo maxaa looga dhigay? linabluwahum ayuhum axsanu camala, inaan dadka itixaamo kooda camal fiican baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. idan ayuha alikhwa, qur-aan aada u tiro badan baynu akhri karaynaa hada almowduucun ka warramaya. afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa turjacuun ayaxsabu linsaanu an yutraka suda. bini aadamku ma in sidiisan lagu daynayaabuu u malaynayaabaa ilahay yihi subxaana wa tacaala, intuu iska noolaado bes aan jawaab dambe su-aal dambe ka dambaynayn miyuu filayaabaa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala? maya weeyaan. idan kow ugu horeyn waxaan leenahay nolosha tan aynu joogno dhammaanteedba halka waxaynu u joognaa waxa weeyaan waa in layna itixaamo. maxaa laynagu itixaamayaa? bitakaaliif, wixii layna faray. wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbudu. cibaadadu waa takliif, waa wixii lagugu itixaamayay. kaa samee, kaa ha samaynin, sidaa rabbigaa u caabud, sidaa ha u caabudin, waxaa cun, waxaa waa kaa mamnuuc. waa takaaliif. takaaliiftu waa shay kulfa ku jirto, waa shay imtixaan oo lagugu eegayo jawaabta aad ka bixinaysaa wuxuu tahay. marka ilaahay wuxuu leeyahy nolosha gebigeedba waxaan idinkana in laydin itixaamo. the purpose of life waa intaa. waxa lagugu itixaamayaana waa maxay? ee ugu horeeya waa takaaliif ilxayaa, waa cibaada ugu horeysa. waayo insaanku bifitratihi bay yidhaahdaan ayuu caabidiyey. laakiin waxaa lagugu itixaamayaa liman tuwajih alcibaadata ilayh. cibaadada ayaad ula imanaysaa. insaanku bifitrati waa kii taarikhyahankii greega plutarch muxuu lahaa, wuxuu leeyahy taarikhda bini aadamka intii la qodee la baadhay lama haya buu leeyahy. waa la helay magaalo aan dugsiyo iskuulla lahayn, waa la hayaa magaalo aan qusuur lahayn, waa la hayaa magaalo aan xusuun iyo meel ciidanku ku gabado lahayn. laakiin taarikhda lama haya buu leeyahy magaalo aan macbad lahayn fi taarikh اlinsaaniya. insaanka markaa waxay dhahaan waa min طabcihi ayay tahay maxay inuu wax caabudo. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka badh afarayta man itakhada ilaahahu hawaah. ma aragta ka waran baa rabbi leeyahy kuwan ilaahooda ka dhigtay waxay caabudayaan waxay naftoodu doonto.
naftiisa waxa ay doontee kastuu ka dhigtay. ayuha alikhwa, markaa waxaynu leenahay noloshanaynu joogna iyadu guul kale ma leh. noloshanaynu joogna waa imtixaan. imtixaankaasina jawaabtiisa rasmiga ah adduunka bacdan minha in lagu horumariyo waa laga yaabaa. nooc min alciqaabaat inay kugu dhacaan waa suurtagal, nooc min annicma inaad hesho waa suurtagal, laakiin waa a bit of it, ma aha jawaabtii rasmigayd. wainamaa tuwafawna baa la yidhi ujuurakum yowma alqiyaama. waxbaa lagaa siiyey dunida intaad joogtay, positive iyo negative kuu doonaba ha ahaado, laakiin iyadoo rasmiya waxaad jawaabta helaysaa baa la yidhi maxay? yowma alqiyaama. walidalik miqyaasku waxaynu leenahay guusha rasmiga ahi ma aha hebel baa lacag helay, ma aha hebel baa caruur badan dhalay, ma aha hebel baa madaxweyniye magac iyo maamuus helay. waxaasoo dhan maaha. xabaasha markaad tagta cidi ku weydiin mayso war dunidii maxaad kaga timi, maxaa xoolo jiray, maxaad dad iyo caruur ka timi, maxaad magac iyo maamuus ka timi. waxaa lagu weydiinayaa as'ilo maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiya. alastu birabbikum baa maalintaa ilaahay ku yidhi. halkan markaad tagtana faman rabbuk baa lagu weydiinaya. huwiyada identity, duni cusub baa timi, tii hore waad ka timi. identity kaarhkaaga lagaa rabaa inaad dhiibato. identitygaaga waa saddexdan su-aalood waxaad kaga jawaabto. man rabbuk, wamaa nabiyuk, wamaa diinuk ayaa huwiya ku ah, kaasba ku ah idgaaga rasmiga ah. jawaabtaad ka bixiso ayuunbaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qad aflaxa man zakaaha. waxaa guulaystay, liibaanay, man zakaaha, naftan qofka tahira, qofka nadiifiya ee xumaha ka nadiifiya. waman yutic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. alle iyo rasuulkiisa ciddii raacda ayaa guulaysatay guul weyn baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala. bini aadamku markuu joogo waxaa laga yaabaa mawaasiintaa ka gedisan in dad badan ay haystaan. qur-aankana ilaahay inoogu tilmaamo. rabbi qur-aanka wuxuu kaga waramayaa nin qaaruun la odhan jiray oo maalqabeen ahaa, aada u xoolo badnaa. qur-aanku inooma sheegin xoolihiisii ee wuxuu sheegay furayaasha qasnadihiisa inaan koox bini aadami qaadi karin. maaha qasnada waxa ku jira, waa furayaasheeda baa la leeyahay cusba min annaas baan qaadi karin. waxaa la yidhi maalin buu soo baxay dadka isagoo ziinadiisii iyo wixiisii dhoolato samaynaya, macrad uu ku soo bandhigayo maalkiisi iyo wuxuu haystuu sameeyey. basharkii markay arkeen, ilaahay wuxuu yihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya. wasfiga kuwan la siiyey waa wasfi qura, waa sifo qura. qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya. kuwii nolosha adduun doonayay waxay yidhaahdeen baa ilaahay yidhi yaa layta lana midla maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim. yaa layt, laytani, alla jeclaan lahaaya bay leeyihiin inaanu helno waxa qaaruun la siiyey oo kale. waxaa ninkani dhaqaale iyo macradkan uu soo bandhigay ee uu ku soo bandhigay dhaqaalihiisii iyo wixii uu haystay iyo ziinadiisii, jeclaan lahaayeen bay leeyihiin waxaanoo kale anan inaanu helno. inahu laduu xadin cadiim bay dhahen. kani waa mid nasiib weyn, adduunka wuxuu ka soo gaadhay nasiib buu aada u weyn. kuwaasi waa group bini aadamka ka mid ah oo waxay wax ku qiimeynayaan uu yahay how many dollars you have. jeebkaaga maxaa ku jira? dabaqadeebaad bulshada kaga jirtaa? bilyaneero mise milyaneero mise masaakiinta? dabaqaadka la sheegayo o dhan waxa weeyaan jeebkaaga maxaa ku jira. adiga laf ahaan qiimeyn ma lihid, laakiin waxaad qiimo ku leedahay maadadaad haysataa inta ay leeg tahay. hadday badan tahay group baad ka tirsantahay, hadday yar tahay group baad ka tirsantahay. walidaalik baa kooxdani ilaahay wuxuu ku tilmaamay waa kuwa adduunka doonaya. qaala aladiina yuriiduun alxayaata addunya. group kale ilaahay tilmaamay. group kale waa maxaa sifada ilaahay siiyey uu yahay. waxaa lagu tilmaamay inay dheergarad yihiin, aqoon-yahan yihiin. ilaahay wuxuu leeyahay waqaala aladiina uutuu lcilm. kuwii hore cilmi laguma sifayna waxa lagu sifeeyey adduun jacayl. qolada tan ilaahay wuxuu leeyahy waqaala aladiina uutuu lcilm. kuwii aqoonta la siiyey iyagu waxay leeyihiin
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وريا هوك بايدين سقنادي بيليين ثواب الله خير لمن آمن إلهي ثواب كيسي جندي سي أبا المركيسة أياك خير بدن لكن أيو خير بدن لمن آمن وعمل صالحا عدي إيماني عمل صالحة هشا ولا يلقاها إلا الصابرون إنه لذو حظ عظيم بيكوي هوري يرادين قولنا إنه حيلين وحن سأنو شيغي إنه لما كل مان dad nolosha sabra mooyaane dad nolosha adkaysi u leh oo mabaadi'diiyo waxay rumaysay inuu adkaysta mooyaane idan basharka ilaahay wuxuu tilmaamay adduunka jooga laba nadro ama laba aragtiyood inay kala leeyihiin qola adduunyadu la qiimo weyn tahay qolada adduunyadu la qiimo weyn tahay waxay wax ku qiimeynayaan marka inta uu haysto waa ninkii hebel ahaa way u gasho waa guulaystay baa la leeyahay muxuu ku guulaystay xaran iyo xalaal waxay doontaba noqotay ku salaac gu helay مرادو كوس لعجة هلاي وحويا واقف قوليستي عندهم نينكي مدحوين النهضة والله وحو وضب السياسة دي وكو قوليستيو بريسيدنت مدحوين نمو قاري وحوار كان قف قوليستي نظرة الشرعي مركا لاقو واقف سؤاشا بتصدي مركا نفتا دو قولا آخر القويديو إيا أمد ميل شوكتا مركا القويديو ورمحادو قباطي ولا بس سؤالو ذا كلام تربضا waxaad kororsatay haddaad ku guulaysato nin raga noqotid imaamka caadilka waxaa la yidhi aakhiro marka dadku meelu harsadaba aan lahaynin carshuraxmaan buu harsanaya laakiin waa qaliilun maahum inta ku guulaysataa waa in yar tajribada adag inta gashe ee guulaysataa walidalik bini aadamku adduunka arkaya qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya baa ilaha yidhi miisaanku wax ku qiimeynayo dhimo waa intan marka hadafkaa si kasta uu ku gaadho uu samaynaya kursiga siyaasiga si kasta uu ku helo uu samaynaya lacagta si kasta uu ku soo helo uu samaynaya waayo iyada hadaf u ah iyada goolka uu noloshaba ka leeyahay iyadu cimrigiisa dhaafsanaya kuwa kalena waxa la yidhi aqoon baa la siiyey waxay u arkaan ilaahay wuxuu bixiyaa khayrka inuu ka fadli badan yahay waxaan oo dhan nabigu calayhi salaatu wasalaam قضايات كان سوى الصحابة وقول شرح حديث كان حالي تلمامي صحيح إنك كويالا نبى صوم مري دبتنا وحولي ورني كان كور رمى ما رأيك في هذا لأن فديو لي نكاس كور وحولي ورجل من أشراف الناس نكان هو وضيضا مقالده كتر سي تقيده هذا والله حري إن خطب أن ينكح وأن مضنبو إلى هدي وقبل كويدستين قبل لصيه haddii uu erga kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo waa waayeel riwaayadka bukhaarina waxay tilmaamayaan waa in qaala yusmac hadduu hadlana goluhu ka hadlayana waa nin la dhegeysto aan laga dareerin nabigu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam waxba kuma darin mid kalaa soo maro wuxuu ku yidhi balkana ka warran maa ra'yuka fi hada saxaabiga la fadhiyu yidhi balkana hadda ka warran waxay idhahdeen kani ورجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع إن كان بينها عنده مسكين وحبه